dhammaanba ay wada jecel yihiin sababtoo ah uu ka dhaqsiyo badan yahay safarka dhulka diyaarad la waayey oo kadib 35 sano dib u soo laabatay diyaarad nambarkeedu oo ahaa 513 ayaa si nabada safarkeedu waxa uu uga bilowmay magaalada Aachen ee wadanka Jarmalka sanadkii 1945 diyaaradda waxa saarnaa 92 qof oo rakaab ahaa kuwaas oo ku socday Santiago diyaaraddaas ayaa duulimaadkeedii waxa ay ka bilowday magaalada Aachen ee wadanka Jarmalka daqiiqada kadib waxa si kidisa uga ay dhammaanba xidhiidhkii lagula socday diyaaradda iyadoo maraysa badweynta Atlantiga gebi ahaanba hal mar ayaa la waayay diyaaradii oo raadaarkiina ay ka luntay diyaaradii 513 gebi ahaanba meel jaaniya edeb ay dhigtay waa la waayay waxay noqotay arrin aad iyo aad u la yaab leh oo dhammaanba fajac gelisay dadkeena intaa kadib waxaa la bilaabay baaritaano aad iyo aad u fara badan si loo helo burburka diyaaradda xitaa waxa baaritaan badan lagu sameeyay badweynta Atlantiga laakiin wax raad ah haba yaraatay lagama helin waana la waayay xitaa jab yar oo cadaynaysa inay burburtay diyaaraddaasi lama helin intaa kadib waxa dhacday in dhammaanba dadkii ay yidhaahdeen diyaaraddaasi waxay ku burburtay hawada iyadoo halkaa ku qaraxday waana laga quustay dhammaanba dadkiina way iska ilaaween waxa ka soo wareegtay sanado aad iyo aad u fara badan 35 sano kadib haddaba maxaa dhacay taariikhdu markay ahayd 1989 airportka dalkaas Brazil raadaalku waxa uu soo qabtay diyaarad aan hore loo ogeyn meesha ka imanayso amba ay ka soo duulayso runtii way ka shakiyeen diyaaraddaas ku dul meeraysanaysa airportka oo rabta inay soo caga dhigato shaki weyn ayaa wada galay howlwadeenadii garoonka isla markiiba waxay wargeliyeen booliskii si loo adkeeyo amniga garoonka kadib go'aan waxay ku gaadheen in ay sugaan intay diyaaradani ka soo degayso dhammaantoodna goobtaas way ka fogaadeen si ay u ogaadaan diyaaraddan meeshay ka timi iyo cidda wadaba haddana dhammaanba dadkii joogay airportka waxa ka sii yaabisay dhacdo kale qaabkii diyaaraddu u samaysantay iyo sidee u egtay wuxuu ahaa mid qadiimiya oo beri hore la isticmaali jiray si kastay ahaataba waxay siiyeen jaanis ay ku soo degto diyaaraddaasi waxay u soo fadhiisatay oo loo waday si qurux badan oo haba yaraatee wax qalad ah ku jirin markii ay soo caga dhigatay diyaaradii ayaa gebi ahaanba waxa la waayay id ka soo degta iyo id la soo xidhiidhaba wax shanqadh ahba waa laga waayayba diyaaradii intaa kadib waxay go'aansadeen inay diyaaraddan gudaha u galaan soona ogaadaan waxa jira iyo cidda wadiba diyaaraddan markii ay sidaa u galeen ayay waxay arkeen arrin mucjiso ah dhammaan barakaabkii diyaaradda saarnaa waxay ahaayeen kuwo qalfoof ah oo beri hore naftu ka baxday arrinta cajiibka leh ee ka sii yaabisay ayaa waxay ahayd iyagoo dhammaanba qof kastaaba uu fadhiyay kursigiisii isagoo xidhnaana suunkiisii sidoo kale duuliyihii diyaaraddan ayaa wuxuu haystay shookaanta laga wado diyaaradda isagoo laftirkiisuna uu ahaa qalfoof 29 qof ee diyaaradda saarnaa dhammaantoodba waxay ahaayeen dad qalfoofa oo beri hore naftu ka baxday diyaaraddan markii ay ku sameeyeen baaritaan badan waxay ogaadeen inay diyaaraddani tahayba mid la waayay 35 sano ka hor oo imika dib u soo laabatay haddaba diyaaraddan yaa waday oo dejiyey dabcan su'aashaas waad isweydiinaysaa 35 sano oo dhan diyaaraddani halkii ayay ku maqnayd sidoo kalena shidaalka halkii ayay ka heli jirtay su'aalahaas waa qaar maskaxdaada ku wada wareegaya sidee diyaarad beri hore luntay u soo noqotay kuwani waa jaraa'idadii laga qoray waqtigaas qisadeeda oo dhammaystiran waxaad ka helaysaan YouTube-ka Google-ka iyo meel kastaba